soo dhawaada jaalayaal tiimkan waa taqaaniin oo waa beta squad maanta waxay sameynayaan challenge xiiso badan sidaad aragtaanba waxay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha waxay u kala bixi doonaan laba koox oo min laba qof ah kooxda koowaad waa Junks iyo Sharky kooxda labaadna waa AJ iyo Kenny Nico maanta Wilger ku fadhiya jilibka ayuu ka dhaawacan yahay sidaas darteed challenge-ga qaybka ma aha Nico ayaa u sheegay kooxdii guuleysata in la siin doono 100 pound balse waa been waxa la siin doonaa 10,000 oo pound oo u dhiganta lacag ka badan 12,000 oo dollar waxaa loo sheegaa inay qaataan diyaaradda ugu raqiisan ee geyn karta Ireland si challenge-ga uu halkaas uga qabsoomo intaysan ka soo tagin Junks wuxuu Wilger-ka la tuuraa Nico nin kale ayaan celinaya markay imaadeen caasimadda Ireland ee Dublin way kala baxeen labada kooxda Junks waxay la heshiiyeen taksiile si la mid ah kooxda AJ iyana taksiile kale ay la heshiiyeen challenge-ga koowaad waxaa laga rabaa inay sameeyaan 50 pound iyagoon waxba iibin team Junks qof iyaga taageera ayaa u imaanaya si uu fiidiyowga uga soo muuqdo kadibna waxay ku dhahayaan waa inaad lacag nagu siisaa si aad muuqaalka uga soo dhex muuqatid wax ma hayo ayuu ku dhahaa kadibna Junks ayuu sawir la galaa teamka AJ waxay ku qaylinayaan yaa raba inuu lacag sameeyo balse gabar ayaa siinaysa 10 senti gabdho kale oo meel taagna ayay ku dhahayaan sawir ayaan idin la galeynaa laakiin lacag ayaad iska bixinaysaa 1 euro ayayna ka helayaan Junks saaxiibkiisa dadka ayuu weydiistaa inay lacag siiyaan wuxuu sidoo kale sanduuq ka soo qaatay qolo lacag sadaqaha aruurisa team AJ caadi maaha waxay keeneen fikrad inay ciyaaraan rock paper scissors qofka tartamayana 1 euro ayuu bixin doonaa ninkii koowaad way ka qaateen nin labaad ayaa diyaar la ahaa inuu dhigto 5 euro maadaama iyaga aysan haysan 5 euro waxay uga bedesheen inay saxiix siiyaan sawir ayuu la galaa markuu lacagta siiyana waxay isku dayaan inay ka tagaan balse wuu soo celiyaa saxiixa ayuuna ka qaataa waxayna sidaas ku sameeyeen 7 euro iyo 10 senti teamka Junks waxay arkeen nimanka jidadka ku heesa kadibna lacagta la siiyo ninka ayay ka dhaadhiciyaan qorshahooda wuuna u ogolaaday Junks dadka ayuu la hadlaa isagoo ku leh haddaad lacag haysana sii waa haddii aad ku qanacdo bandhigeena Junks ayaana hees ku tuuranaya qofkii ugu horeeyay 20 euro ayuu bixiyay qof kale ayaa 20 kale ugu daraya dadkii kale ayaa lacago ku riday markay xisaabiyeen waxay noqotay 110 euro waana in ka badan intii laga rabay maadaama lacagta ay keeneen sidaas ay challenge-ga koowaad uga gudbeen lacagtana ninkii alaabta lahaa ayay siiyeen balse teamka AJ weli 7 euro ayay haystaan qof ayaa siinaya 2 euro nin kale ayaa kula shartamaya 20 euro oo ay kula tartamayaan rock paper scissors 2 iyo eber ayuu uga badiyay balse AJ ayaa dhahaya ka waran hadii dib aan u soo bilaawno markay ku xishteen iyaga ayaa ka guuleystay 20 euro ayayna ka dishteen kale ay qabanayaan waxayna u sheegayaan inuu kula tartamo aqoon guud haday ka badiyaana uu siiyo 20 euro markuu ogolaaday AJ wuxuu kini weydiiyaa su'aalo aad u fudfudud balse ninka kale wuu ku adkeeyaa wayna ka guuleysteen 20 euro oo dheeri ah ayayna shaqaysteen isku dar 49 euro ayay haystaan waxay dadka weydiistaan yaana ugu daraya 10 euro wiil dhalinyaraha ayaana siiyay sidaas ayayna uga gudbeen challenge-ga koowaad challenge-ga labaad waxaa loo sheegaa inay gabar ku shukaansadaan luuqada ay u dhalatay team Junks gabar American ah ayay arkayaan Sharky ayaa loo diray markuu xoogaa la hadlay number ayuu weydiistay balse waxay ku noqotay naag la qabo ninkeedana uu la socdo waxay ahaataba sidaas ay uga gudbeen challenge-ga labaad maadaama kaliya laga rabay inay gabar kula hadlaan luuqada ay u dhalatay teamka AJ waxay arkeen gabar Afrikaan ah wuxuu weydiiyaa maxaa lagu dhahaa I love you luuqada Irishka markay u sheegto isla markiiba numberkeeda ayuu weydiistaa balse way ka diiday waxay haddana arkeen gabar kale oo ka soo jeeda Nigeria gabadhaas ayna numberka ka qorteen challenge-ga saddexaad waxaa loo sheegaa inay cuntada dalka ku iibsadaan lacagtii ay hore u soo aruuriyeen balse teamka Junks lacagta waxay siiyeen ninkii heesayay maqaayad ayay tageen cunto dhaqameedka wadankaas ayna dalbadeen teamka AJ waxay gabdha meel taagan weydiiyaan haday u tilmaami karaan meesha ugu dhow ee ay ka heli karaan cunnada dalka nasoo tusiya ay ku dhahaan waxayna shardi uga dhigaan in haddii ay raacaan ay la cuni doonaan cunnadaas intay gees iskula baxeen ayay ka wada hadleen inay ka laabtaan go'aankaas maadaama ay hadda soo barteen gabar iyada ayayna wacaan wayna balamiyaan waxayna ka soo dhuntaan gabdhihii kale markay u imaato gabadhii ay wacdeen waxay soo aadeen maqaayadii intaysan soo gaarin waxay meel dhexe ku arkeen gabdhihii ay haday ka soo carareen markay maqaayada imaadaan dalabkooda ayay gudbiyaan kadib waxay arkeen gabdhihii oo isla maqaayadii imaaday argagax iyo ama kaag ayaa ku dhacay teamka Junks challenge-ga saddexaad way ka soo baxeen teamka AJ gabdhihii ay ka soo dhunteen ayay markan la heshiiyeen wayna la cunteeyeen markii la gaaray xilligii lacag bixinta waxaa ka dhinnay 70 senti alaabta ayay dhaqayaan miiskana way nadiifiyaan sidaas ayayna uga gudbeen challenge-gii saddexaad challenge-ga afraad waxaa lagu xujeystaa inay isticmaalaan suuli guri ayay tagayaan waxayna weydiisanayaan inay suuligooda isticmaalaan markan intay iswacaan ayay iswareystaan teamka Junks waxay tageen guri ay leeyihiin taajiriin teamka AJ-na guri ayay garaaceen balse waa loo diiday teamka Junks wax la hadla ayay waayeen isku day kale ayay sameeyeen si fudud ayaana loogu ogolaaday Sharky ayaana galay teamka AJ hadda ayay heleen Kenny ayaana galay kadib wuxuu si ku talagal ah ugu sameeyaa inuu ku dhex qayliyo suuliga
taas oo la yaab ku abuurtay cidii u ogolaatay inuu galo suuliga. Labada tiimba sidaas ayay uga gudbeen challenge-ga afaraad. Challenge-ga shanaad waxaa laga rabaa inay kubad la ciyaaraan dad kale. Team Chunks kubad ayay soo iibsadeen, salax ayayna imaadeen. 4 dhalinyaro oo meesha ku sugneed ayayna kala qaybsadeen. Halka tiimka AJ ay heleen dhalinyaro fara badan oo kubad ciyaaraysa, wayna kala qaybsadeen. Ciyaarta ayaana bilaabatay. Kooxda AJ waxay 2-0 ku hogaaminayaan kooxda Kenny. Tiimka Chunksna 2-0 ayay ku hogaaminayaan kooxda Sharky. Ciyaarta AJ iyo Kenny 3-1 ayay ku dhamaatay. Balse Chunks comeback ayaa lagu sameeyay oo 3-2 ayaana looga guuleystay. Challenge-gii shanaadna sidaas ayay uga soo gudbeen. Challenge-ga lixaad waxaa laga rabaa inay sawir ku soo galaan meel caan ka ah magaalada ay joogaan. Team Chunks waxay gabar weydiiyeen intee ugu caansan magaaladan. Waaba isla meesha ay taagan yihiin dhismaha ku yaala. Way farxeen waqti badan ayana u badbaaday. Halka AJ tiimkiisana ay ka soo dhamaadeen challenge-ga lixaad. Challenge-gii ugu dambeeyay kooxdii ku soo hormarta garoonka diyaaradaha ayaa guuleysanaysa. Labada koox waxay tagsiilayaashooda u sheegaan inuu si degdeg ah ku geeyo garoonka diyaaradaha. Nasiib wanaag Team AJ ayaa ku soo hormaray garoonka. Kooxda Chunks waxay arkeen in laga guuleystay. Challenge walba waxaa ciyo dhameynayay tiimka Chunks, balse way isdhigteen waana laga guuleystay. Sidaas ayuuna ku idlaaday challenge-ga. Fadlan haddii muuqaalkan uu ku cajibiyay like noo saar. Mahadsanid jaalle.